السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhammaan aqayaarta baan salaamay casharkan wuxuu ku saabsan yahay sidee mobilkaaga android haddii uu kaa cuslaado inta badan waxaad arkaysaa mobilada androidka markaa muddo badan isticmaashid waqti badan aad program ugu badisid waxaa laga yaabaa markaa inaad meel taabatid inaad cabaar marka jagsiisid oo cabaar soo daahdaahaya marka sidee mobilkaaga adoon meel u geynin receipt factor u samayn kartaa marka aan ku tuso marka way fududahay receipt factor saa u samaysid qof kastan uu yaqaana laakiin waxaad samaynaysaa settingka ayaad tegaysaa kadib markaad settingka tegtid waxaad raadinaysaa meel ay ku qoran tahay backup and receipt ay ku qoran tahay kadib markaad hoos tagtid ka ratid settingka waxaad ku arkaysaa backup and receipt ayaad ku arkaysaa dhinaca kale waxaa kugu soo baxayo vector data receipt ayaad kugu soo baxay kaas warbixintaada dham iyo ku jira markaa ku dhufatid wuxuu ku soo saarayaa wixii email iyo gmail iyo waxa markaas kugu xiran iyo viberkaaga oo ku xiran dhammaan kusoo saara receipt ayay leedahay kadibna wuxuu ku weydiinayaa logi ku xiran haddii uu password ku xiran yahay haddii loo ku xiran yahay haddii uu ku xirnayna wax uu ku weydiinaya malaha kadib markaad samaysid wuxuu kaa dalbanayaa oo kuu sheegaya wuxuu ku leeyahay erase all your personal information download apps wixii aad soo dhalangarayso dham ay wixii aan warbixin kugu jiray waa la masaxay waa la tiri doonaa la soco dhammaan waay delete all aan ku dhuftay mobilka culeys ayaan ka dareemay si aan u tiro ayaan darteed ayaan idin tusay mobilkan sidaas ayuu hawada ugu baxay waana fududahay insha allah bina kariim haddii mobilka caadi u kacsan yahay oo shidan yahay micnaha culeys badan ka dareentid sidaas ayaa fiican applicationada wax dhibi ma lahan waxaa ku samaysan kartaa dhimale inaad gadaal install kaga soo samaysid ama marka koowaad inaad backup ka samaysid marka insha allah bina kariim way fududahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran